الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة، وحان كوكودا جرني دراسة تاريخ الإسلام قارهان وحان كوكودا جرني مغازي النبي عليه الصلاة والسلام دولامدي النبي أوقاضي غزوة بدر الكبرى أيان دحد وجرني. waxaan soo sheegnay nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo ciidankiisii iyo reer Makka inay ku kulmeen dagaalkii Badar. meesha Badar la yiraahdo inay ku kulmeen. waxaan soo sheegnay nabiga kaleey salaatu wasalaam maqarrul qiyaada in loo dhisay meeshii oo ka hogaamin lahay ciidanka Arish inay saxaabada nabiga kaleey salaatu wasalaam ay u dhiseen. fikirkaasna uu iska lahay Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu. habeenkii dagaalkii Badar subaxdii oo dhacay habeenkaas wuxuu ahaa habeen bisha Ramadaan ay tahay 17. waxaan soo sheegnay nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu ka soo baxay magaalada Madiino bisha Ramadaan oo 8 ah. riwaayadaha qaarna 12 bay ahayd biiraadaan. dagaalkii Badar markii wuxuu dhacay maalin Ramadaan bishana ay marayso 17. habeenkeedii marka nabiga kaleey salaatu wasalaam uu bariyay habeenka isagoo tukanayo Ilaahay bariyay subhanahu wa ta'ala geedo hoosti ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam ku tukanayo Ilaahay ku bariyay. waagu markuu bariyay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam salaadii subax uu tujiyay waa istaagay nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabada ayuu u khudbeeyay. dagaalka ayuuna aad ugu booriyay. dhankan kale mushrikiintii ayaguna aad bay isu khilaafeen. waxaan soo sheegnay in fariintii ninkii ahaa Abu Sufyaan fariintii uu soo diray oo ahaa annaga iyo safarkeen inta waan noo badbaadeen iska soo noqda oo Quraysh u soo diray. fariintaasi waa soo gaartay. waxaan soo sheegnay magaalada Makka markay ka soo baxayeen mushrikiintu markay ka soo baxayeen 1300 inay ahaayeen. marka Qurayshtu waxay ka koobneed 7 laf bay ka koobneed. 7 laf ay ka koobanta Quraysh. reer Bani Adi ma soo dhaqaaqin. waa beesha uu ka dhashay Umar radiyallahu ta'ala anhu. soo ma raacin. reer Bani Zuhrana markay yimaadeen Badar markay yimaadeen oo warkii Abu Sufyaan uu soo gaaray waxay dhaheen waa iska noqonayna aan noqono. Akhnas ibn Shurayq ayaa oday u ahaa wuxuu yiri aan noqono. waa laga diiday. waxa ka diiday Abu Jahl noqon mayno yiri ilaa aan ka Badar tagno 3 maalmood aan joogno geela aan ku gowracano khamri aan ku cabno habluhu inoo heysaan ma dhaqaaqayo yiri oo Carabi markaas ay naga heebaysato. Akhnas ibn Shurayq ciidamadiisii marka reer Bani Zuhra 300 bay ahaayeen waa la noqday. kun baa soo hartay. kun muqaatil ayaa soo hartay. nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisuna waxay ahaayeen 312 bay ahaayeen. Hakim ibn Hizam iyo Utba ibn Rabi'a labada nin baa waxay ku dadaaleen in dagaal la baajiyo Quraysh ay iska noqoto. Hakim ibn Hizam markii dambe waa islaamay. maalintaas Ilaahay baa badbaadiyay. islaamkiisina waa u wanaagsanaaday. waagii dambe markii Ilaahay wina subhanahu wa ta'ala uu ku manaystay islaamnimada marka uu rabo inuu dhaarto dhaartiis oo adkeeyo wuxuu dhihi jiray la والذي نجاني من يوم بدر
arrintu sidaa ma ahan waxaan ku dhaartay allihii i badbaadiyey maalintii Badr maalintaas ilaahay badbaadiyey subxaanahu wa ta'ala marka Hakiim ibn Hizaam iyo Utba ibn Rabiica labadaas waxay damceen in dagaal la baajiyo oo waxa weeyaan la noqdo arrintaas waxa ku diiday Abu Jahl waliba Utba ibn Rabiica iyo Abu Jahl hadal baa dhex maray xun wuxuu ku yiri Abu Jahl ninkaas uma jeedaan waa nin cabsanaya wadnaha weynaaday waa nin cabsanaya wiilkiisina Maxamed buu la socdaa marka waa nin fulaya oo cabsaday uu ku yiri arrintaas aad iyo aad buu uga carooday Abu Jahl markiiba wuxuu sameeyay Amr ibn Hadrami ninkii la oran jiray oo sariyadii Abdullah ibn Jahsh dileen Amr ibn al-Hadrami wa awwal qatil fi al-Islam nin la dhashtay oo Amir la yiraahdo wuxuu ku yiri warniyahow waxaad samaysaa ka oo Quraysh waxa weeyaan kici dadkan nimankan waxay u ololeynayaan in dhiigi walaalkan la duugo marka orod kac ninkii marka uu soo kacay si uu u dalbo walaalkii dhiigiisii fakashafa anistihi dabadoo fayt waa dhaqankaas bay lahaa jireen dharkii iska bixiyay waa isqaawi waana qayli annagu hadda dhaqankaas Soomaalida ma taqaan laakiin dhaqan u dhow bay yaqaaniin oo marka la rabo qabiilada in la kiciyo haweenka gambada tuura marka la rabo in dab la shido haweenka gabdha waxa weeyaan waxay sameeyaan gambaday tuuraan marka ninkani uu isqaawiyo waana qayliyay wuxuu ku qayliyay waa amrah nudba ayaa la yiraahdaa alla amarkaygiyo uu yiri marka qoomkii way kululaadeen marka waa istaageen dagaalkii u kaceen nabigana kaleey salaatu wasalaam asagana uu soo baxay nabiga kaleey salaatu wasalaam sufuuftii ayuu simay dadka muslimiinta markay salaada tukanayaan waxa laazima safka inay simaan kuwaad laba marba sufuufta in la simo marka jihaadkana sidaas oo kale rabbi wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala inna allaha يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلهي واجعلي سبحانه وتعالى ضدك دغالمه وددي سنه كو دغالمه ايغو صفن marka nabiga kaleey salaatu wasalaam sufuufti ayuu hagaajiyay saxaabadana tacliimaad ayuu siiyay oo wala dardaarmay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxyaabihii nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabada u kala hadlo waxa kamid ahaa wuxuu ka nahiyay rag dhowr hadii ay qabtaan oo dagaalka lagu qabto inaan la dilin waxa kamid ahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu sheegay niman reer bani Haashima in waxa weeyaan Quraysh ay xoog ku soo waday oo xoog ku soo kaxaysay marka ruux reer bani Haashima hadii la qabto in nabiga kaleey salaatu wasalaam lagu soo sino oo la dilin ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabada uu sheegay nin liraado Abu al-Bakhtari ibn Hisham asagana nabigu wuxuu sheegay in la dilin ninka hadii la qabto saxaabada uu sheegay Abu al-Bakhtari ibn Hisham waa nin nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo reer bani Muttalib reer bani Haashim markii Quraysh ay go'doomisay oo shicbu Makka lagu go'doomiyay warqadii heshiiska lagu qoray raggii waxa weeyaan burburiyay saxiifada in la buriyo ka qayb qaato kamid ah markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ninka hadii la qabto yaan la dilin nabiga hadii abaal loo galo abaalka waa gudu jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam hasa ahaatee ninkii sidaas ahay oo nabigu sida uga dardaarmay saxaabadii waxay arkeen qabteen asagoo nin kala la socdo labay ahay markaas la yiri adigu isdiib maxbuus ahaan baa lagu qaban ninkan waa la dil markaas urmay labadeena wana qabta labadeenaba ma yeedhan ninkan nabigu nama amrin kan inaan deeyno markaas urmay anna ma yeelay labadeenaba hana la wada dilo aniga
magaalada Mako islaamankii joogay ugu sheekaysan maayaan dhihi maayaan saaxiibkiisu meel uga cararay soo nolol doonay sidaas weey marka labadoodii waa dagaalameen asagina meesha lagu tiri waxa kamid ah ragga nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri hadii la qabto yaan la dilin adeerkiis Abbas ibn Abd al-Muttalib oo riwaayad qaar ay ku soo arooreen inuu hore uu islaamadiisana uu qarinay marka qasab ay ku soo wadeen tayib dadkii maalintii la qaftay uu kamid ahaa Usara Badri uu kamid ahaa Abbas ibn Abd al-Muttalib marka Quraysh ay go'aansatay dagaal ay soo hinqadeen nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay uu bariyay Allahumma hadhihi Quraysh qad aqbalat fi fakhriha wa khuyalaiha tuhadduka wa tuhaddu rasulak ilaahay tani waa Quraysh midani waa Quraysh way soo qaabish ayada oo faajeertamaysa oo faanayso kibirkeedii iyo faajeertankeedii ayay Allah nagu soo qaabishay ayadoo waliba adiga kula dhinactamaysa oo adiga ku khilaafaysa rasuulkaadana khilaafaysa oo la dhinactamaysa ilaahi aad buu u bariyay nabiga kaleey salaatu wasalaam sufuufti markuu sameeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam uu noqday عريشكيسي أيو كن نقضي أصغي أبو بكر سعد بن معاذ يرق أنصار تكم إذا نوحي استاجين على باب العريش عريشكي النبي عليه الصلاة والسلام الباب كيس أيو النبي إلى عليه الصلاة والسلام دقالكي مركا وحكوب اللاوضي وحلو يغان مبارزة واجي هور وحل يغين مبارزة انت دقالك اللي قدقين إن ليس صبح رجع وعويان هل يدا كوحدة صباحيان كوهان صباحيان سيف ليس جهل دور دجال قصاص وكوب اللعبين المبارزة هذا لما يقع عن مبارزة وحى صباحي سدح من أيا قريش كسبودي سدح داني وحي أهايين عتبة ابن ربيعة شيبة ابن ربيعة يوليد ابن عتبة وويل يا أبيهس يا نينكالو لا دشتي أباها أو أدير وويل من نوع لا دشتي مركوا نمان اسكو دوان لبا نين ولالا iyo wiil mid kamida oo dhala cutba saddexdaas oo soo baxday ayib saddexdaas markay soo baxeen waxay dalbadeen hana loo soo baxay yiraahdo mubaarazadii rag noo kuf ha soo baxaan bay yiraahdo markiiba waxa iscelin waayo soo booday saddex dhalinyaro ah oo kamida min shabaab al-ansar ansarta waxa weeyaan dhalinyaradoodii kamid saddexdaas oo soo baxday saddexdaas waxay ahaayeen Auf iyo Muawid oo ibn al-Harith ah labaduba walaalay ahaayeen Muawid ibn Harith iyo Auf ibn Harith waxayna caan ku yihiin ibn Afra sidaan Afra la yiraahdo ayaa dhashay iyo Abdullah ibn Rawah saddexdu waa ansar شاعرك رسولك صلى الله عليه وسلم صبحين markii ay soo baxeen bay waxay ku yiraahdeen man antum yaatihin markaasi waxay yiraahdeen nahnu min al-ansar ansar baan kamidna niman ansar ayaan markaasi waxay yiraahdeen alla ilaahay niman noo dhigmaati niman kufno oo wanaagsan baatinada ansartiin لكن أديك إني مرة منو وحن رمنا بني عمنا المهي أن المقدار كهي نمكي أن ما كأسل جو جرني نمك عسان دونينا أديك إني مرة منو بيراد نمكي قريش هاي وهلك ما كأسل جو جرني نمك عسان رمنا إني نوصل بحان مركز النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حمزة استاك قم يا علي استاك قم يا عبيدة سدح النبي استاجي عليه الصلاة والسلام سدح هذا النبي استاجي قروين علي يا عبيدة يا حمزة والنبي أدير كيس علينا أدير وإله عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وأسونا
وسدح رير بني هاشم والنبي كجفاء صلى الله عليه وسلم أدير كيس ويل المعذير لواء المعذير يجين سدح ذو هل كاس مركز درس بالله قاعدنا درس وحي النبي عليه الصلاة والسلام مر هدي جهاد إيو وحويان دجال هدي للتاجين دب والنبي عليه الصلاة والسلام وحو أهر مرجلي رجع جفيدي سو أهر مرجلي النبي عليه الصلاة والسلام وصامرني سريات في أهر النبي عليه الصلاة والسلام لبدو ذو يوم مدح ودي حمزة إيو عبيدة ابن حارث ابن عبد المطلب لبدا سو مدح ودي حدنا مبارزة للتاجية سدح داسبا وارير بني هاشم marka wax bixin ay marayso wax in la bixiyo oo wax la siiyo wax siin markay maraysana nabigu dadka kale hormari jiray kaleey salaatu wasalaam hadigiisa dhaqankiisa sidaas oo ah laakiin maanta arinta waa la cagsi nigu haduu madax noqdo oo waxa weeyaan oo jaga qabto iyo hormarinaya marka wax la siiyo wax la bixinayo reerkiisa oo hormarinaya wax bixin markay marayso reerkaada wax u tar reerkaada wax u qabo halkaas uu ka bilaabaya maalintii dib taagan yahayna reerkiisa gadaal uu marinaya dad kale oo dibka ku ficinaya taas marka waa hadiga nabiga kaleey salaatu wasalaam ay khilaafsantaa waxa la isugu yimid banaankii badar baa la isugu yimid lixdii soo baxday sida xadiidka oo warinaya Abu Daawud fi sunani إمام أحمد في مسنده سدح مبارزة سدح الشيء سوء آذين وحوي علي وحوكو آذي شيبة حمزة وحوكو آذي عطبة عبيدنا وحوكو آذي وليد ويل كيراي سيدا سالي سوء آذي لكن أهل سيركو ويكل الدوان ووحي يرادان رجع عبيدة ويناي عطبه كؤادي حمزة الشيبة ويل كيرنا علي بالو آدي طيب لكن تاس حديث كان صحيحة والشيخ ناصر الدين الألباني وصحيح أي خلاف يسا ولا يسكو صوب حي علي إي حمزة لبدي نين أو أبحضي دولك لما جاري مركي بكوبي كغسي عبيدة إي وحا صاهري إيه منكي أصوب حي أساق وأما وليد هل يرادو أما عطبة هل يرادو لبدو وحي إسقارسيين نظر بي إسقارسيين أو مدوم متك كلا أوصل أعلي كريم أي إسقارسيين مدوم ميالو قرد عمرك علي إيا حمزة مركي كسو تخلصين لبدو دي بي أوي مادين كي مركاسي لما يسترين داوعين ماشي كاقاتين عبيدة أو داوع أو لوكاقو أنتهي أي ماشي كلابحين طيب عبيدة داوعي مركا ديق بحي أيا إسكا صعودي نبي عليه الصلاة والسلام مركو كان نقضي ماشي بدر مركو كان نقضي ومدينة أسي صعودي يودحكو جيريود مال الصفراء اللي مركو مري أيو جيريود عبيدة رضي الله تعالى عنه هل كاسو كو شهيد هذا بقى أرنتي مركا آد بي ماركتي ay uga xumaadeen Quraysh saddex nin oo haliyeeye ah oo fardafuuladoodii caanka ahay ayaa meeshii la dhigay dagaalkii marka wuxuu ku bilaabay suura xun oo ku bilaabay oo isaga ayagu u begay dagaalkii nabiga kaleey salaatu wasalaam hidaayaadkii iyo dardaarankii oo siiyay saxaabada waxa kamid ahay maalintaas subaxda oo kula dardaarmay inaysan dagaal aysan qaadin ayagu weerar aysan qaadin isaga idankiis difaac in la ahaado ayagiya marka kululaaday ila saddex nin meesha ka taal nin hore dhiigiisna waa doonayeen waa laga dilay Amr ibn Hadrami afar bay marayaan waa soo kacay marka dagaalka aad u soo karriyeen muslimiintii marka safay ku jiraan ileen waxa weeyaan nabiga taatigaas la yimid hore uma aqoon saf ahaan in lagu dagaalamo Quraysh hore uma aysan aqoon waxay taqiinay far iyo karri bayqaan far iyo karri in la galo kooxi gasho la rogaal celin iyo cararid bayqaan kooxa gile
وكسو بخي كوخ كلا جلي وحي يقان فر يكرب يقان لكن صف إن لقو دغالهم ما يسن قراني نبي عليه الصلاة والسلام عريش كيس أيو كسو بحي الصغو رحيا أو آخرين إلهي قول كيس سيهزم الجمع ويولون الدبر كوحدان إسصاب هاي ستي ولا جبي دونا تبادين الجيد دونا عربوا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مركزوا قابلي قريش لقابلي مركزوا كحو كويل شاهت الوجوه مركزوا كتور وعن طابع عرأه مركزوا النبي كفر بي عليه الصلاة والسلام مركزوا فرديي إلهي وقاضي عردي كنكي مقاتلو ماشا تاغري متكست عردي عنده كقش إلهي أوديس وك في سورة الأنفال ربي كيري وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ما آذن من أديك محمد مركات جميسي ولكن الله رمى لكن إلهي بقى حيلي إلى آذن وحويان عن طابع الراء وطوري كن قف عندها كقش طيب أسوأ وأر المعجزات طيب dagaalkii yaa marka darnaaday marka arrimii nabigu kula dardaarmo waxay saxaabada inaysan dagaal ayagu qaadin oo idifaac halkooda ay ku jiraan marka waxa weerar ahaayo weerarka soo qaada Quraysh waxaana la yiraahdaa ciidamada dadka weerarka ah iyo kuwa difaaca waxa dhibaatadu u badan tahay markasta qolooyinka weerarka ah قولوني كويرك واليراد الأكاديمية الحربية كتبت اليراد وأكاديمية الحربية كهذا الشيء عسكري سداسي الشيء ولي وحي هذا مركب ويرك لقاضي عيدا كلا ويري أو دفاع كجراي كوا ويرك وإني كسد تحت بارمان هديك الروايات ويكون بدنيسا طيب دجالك آيات درنادي نبي إلهي مبريي آد بأبريي نبي إلهي سبحانه وتعالى آد بألحاحي الدعاء أبو العليي إلى قرب كيسي قوي صارنا وقنعي أبو بكر مركز أو قوى رسولك أصو قاضي وهاجي كدمنا رسولك إلهي واتكو إلحاحي سبريضة وحي أكو بلن قاضي وكو أفنية إنت أكو فلان سيدا سودهي أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسولك وحده عليه الصلاة والسلام وقول العليلي اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم إن تهلك إله هداد هلاكتت ما أنت كوح ضانيا ما أنت هداد هلاكتت لا تعبد في الأرض الرضا الوقوع عبد الماء طيب مركز إلهي بن سودجي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وحاد حسطا مركي آد قرقار كدل بيسين ربيهين oo aad baryaysay ilaa noo gargaar aad lahaydeen oo rabbi oo idinka aqbalay anni mumiddukum anni bi anni aniga mumiddukum waxaan idinku xoojinaya bi 1000 min al malaa'ika kun malaa'ika oo murdifina waliba isfangashan israac raacsan tayib nabiga kaleey salaatu wasalaam markaas kadib lulma ayaa qabatay nabiga lulma qabatay أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة للما قبطي هردنا وحال إرادة قفك أصوه الصلاة كجرة قفك هدي هردة قبط من شيطان كتيم تاسو لكن حالة الحرب مرة تاغية حالة دقال قفك هدي هردة قبط هردة أصبحي توسيسا طمعنينة سكينة يحسلوني قف أنول والسنين أو اسكح حسلون دا حالة دقال تاغين تدائرة هردنا هيدو وحويان وعلامات كتوسية قفكاس وحويان إن إلهي وينا سبحانه وتعالى وسكينة سيدي حسلوني نبي مدحي سكر أي أصو قاضي أصو دحيا أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع بشاريسو أبو بكر كان هو جبريل وملك جبريل ولبا يدعو على ثناياه النقع لبدي سفال وحاضر صار بور دغال اي تاغي ايغنا marka nimankan quraish ilaahi wina subhanahu wa ta'ala wuxuu ku riday
رعب يأرجح با إلهي كريم سبحانه وتعالى سدعدي بقول يطوان يدوركي أيا وحى لو تسيي إني أيا كتر بدنيه إني كتر بدنيه أيا إلهي من أتسي سبحانه وتعالى إلهي وأرجح يرعب كريم طيب dagaalkii markii fooda la isku daray la iskuma daahin muslimiintii ayaa ilaahay wina subhanahu wa ta'ala guusha siiyay gaaladiina badana way carareen qofkii ugu horeeyo dhabarka jeediyo cararo gaala wuxuu ahaa nin leeyahay Khalid ibn al-A'lam waa la gaaray waa la soo qafaashay muslimiintu way daba galeen markay gaaladu waxa weeyaan ay yaaceen raadadkoodii daba galeen ayagoo laynaya kuwana qafaalanaya muslimiintu waxay dileen maalintaas 70 ayay dileen 70 gaal ayay dileen 70na waa qafaasheen ghanimooyin aad iyo aad u fara badanna waxa weeyaan way ka soo qaateen nabiga kaleey salaatu wasalaam dadkii oo magacaabay marka waxaan soo sheegnay oo xalqadeennii hore ku soo sheegnay nabiga kaleey salaatu wasalaam markii loo dhisay cariishkii inuu dhaqaaqay oo una tagay mawdicul macrikada ee dagaalku boosku ka dhici doon markaas uu nabigu sheegay kaleey salaatu wasalaam ninka hebel la yiraahdo bari meeshaana la dhigi doona hebel halkaana la dhigi doona masraciisay halkan hada masracu fulan wa hada masracu fulan wa hada hebel inta la dhigi doona inta lagu diri doona dadkaas oo magacaabay waxa kamid ah Abu Jahl Abu al-Hakam Amr ibn Hisham bay dhigi jireen laakiin xikmad ma hayn nin xikmad haaya ma hayn ninka waxa ka xikmad badnaa Akhnas ibn Shurayk xaylay Akhnas ibn Shurayk talkiisi waa cali reer bani Zuhra waa badbaadiyay midna kama dhiman maalintaas waliba way adeeci jireen warkiisana waa yeeli jireen ila wixii dhacay ogin maalinta ninkii badbaadiyay way laakiin Abu Jahl talkiisi waxa weeyaan meel balaayo ayuu ku riday wa halu qawmum dar al-bawar dadkaas oo kamid dadka waxa weeyaan qoomkoodii dajiyay daar la halaag dajiyay oo ku jiray nin tala iyo xikmad haaya ma ahayn Abu Jahl nabiga u bixiyay ninkaas marka waxa dilay Abu Jahl waa generaalkii ciidanka hogaaminayo Abu Jahl ciidanka ninka hogaaminayay Abu Jahl ayuu ah ciidanka hantida ku baxaysana 9 nin oo waxa weeyaan Quraysh oo reer Makka ah ayaa damaanad qaaday hantida ku baxaysa anaga bixinaynay maalintii waxay qalad jireen 9 neef ila 10 neef maalina 10 maalina 9 ay gowraca jireen hantida waxa bixi jiray 9 nin ayaa wadaag waxa dilay 2 nin oo dhalinyaro ah Mu'aad ibn Amr ibn al-Jamuh ninka la yiraahdo Muawid ibn Afra labadaas ayaa Abdurrahman ibn Auf ka barbar dagaalamay markaas u yimaadeen wixii ku yiraahdeen Abdurrahman waxa noo sheegtaa Abu Jahl waa niman yar dhalinyaro ah wiilal Abu Jahl ma yaqaanin niman yaqaan ma maxaad ka rabtaan ninkaas waxaan maqalnay nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu ku dhibi jiray magaalada Makka ninkaan noo sheeg markaas waa ninkaas way meesha uu tilmaam isla markiiba seefahooda ay la ordeen Abu Jahl bartiyay dhigeen labada nin baa dilay oo jilciyay oo dhulka dhigay kadib waxa dhameystiray Abdullah ibn Mas'ud ayadoo nafyar ku jirto uu yiri Abu Jahl oo u yimid markaas waxa weeyaan madaxa ka gooyay halka jeegada inta uu istaago madaxiisa soo gooyay markaas madaxiisa soo jiitay markaas nabiga uu keenay kaleey salaatu wasalaam rasuulka aad u farxay sallallahu alayhi wasallam Utba iyo Shayba oo ilma Rabiica ah iyo Walid ibn Utba iyo Umayya ibn Khalaf nimankaas waxa weeyaan sanadiidu Quraysh ah halkaas lagu gabawareeyo lagu laayay Umayya ibn Khalaf asaga waa dadkii la qabtay oo ku jiray oo gacanta lagu dhigay Abdurrahman ibn Auf baa qabtay
أمية بن خلف سوى أوحر حرنيه بأوحى أركي بلال رضي الله تعالى عنه أي عندها صار بلال وانكي عذابي جريوي وأضون صدي ومركو إلهي رميي وحويان دينتا كبح كو عذابي جري وانتقبته وحويان بطحاء مكة كي جري بعادك مكة وقليلك مركاسو سيدا انت أدقو أيو دقح وحو كساري جري حبتك سوى دهي أحد ونكي سيدا وعذابي جري إنه صار سوى حرحران markaasuu waxa weeyaan oo wuxuu ku yiri ta ku soo jeestay markuu arkay uu yiri ra'sul kufri umayya ibn khalaf طيب ما بدباديس انا هدان بدباد لا نجوت ان جاء لا نجوت ان جاء ما بدباديس هدان انا بدباد labada mid aad tagaayo bilaal markaasuu u qayshaday ansaartii رأس الكفر أمية ابن خلف مركز الله يسوي عبد الرحمن بن عوف وعربي إن ذاتك أسارة بدر القدرة في رواية قال الشيء يواجه هو جاهلي أي صاحب أهجري طيب ماش مركي يالوي ميت لأن يردي أيوه واحد سافيه وته حلقي يالودي لمرك طيب رسولك صلى الله عليه وسلم دقالك مركي للايين مركي تضواطن ماشي لو غدي تضواطن الله هايو نبي وحو امري عليه الصلاه والسلام الا سو كانو سو اروريو ميدكودي ايو امر ولا سو جيدو ميد كاستا او قليب مارت عيل غرف هاي او ماشي ku yile badar in la isugu keeno meedkoodii waqtigoodii inta la soo arooriyo in meesha la keeno meeshiya marka godkiya lagu soo riday ceelkii garafka ahaa lagu aasay nabiga عليه الصلاه والسلام waa dul istaagay markaas wuxuu ku yiri yaa ahlal qalib eelkan dadka ku jiro mid mido waliba ugu yeeri yaa aba jahl wa yaa utba wa yaa shayba wa yaa umayyah ibn khalaf u yeeri nabi alayhi salatu wassalam hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan hal wajadtum ma wa'adakum ربكم حقا ربكم وحي أو إذن يبوهي أو حقا مهشين أو قعنت مقوهيسان فإني قد وجدت ما وعدني ربي أنا يوحو إيا وهي حقا هاي أنا الله استعدكم ما يستان مركز مسلمين تيوحي كويرادين رسولك إلهي يو أتكلم قوما موتا مقام بنتي أو بكتيا مياد لهالليسا رسولك إلهي يو مركز رسولك وحير ما أنتم بأسمع لما أقول منه والله إن أدنى أدنك وحويان كم مقلد بدنين أدنك أدن هذا نول وحا أنا لا أيه ويمقلعي لكن ما جوابي كرام جوابي معلي كرام جاء النبي عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام meeshaas ayuu joogay arasadii meeshii banaaneed oo dagaalku ka dhacay 3 maalmood ayuu joogay nabi kaleey salaatu wasalaam al-akademiyat al-harbiyana sidaas ay sheegaan meel hadii la qabsado oo dadku ay qabsadaan waa in guusha la xaqiijiyo meeshaas la joogo 3 maalmood ayaa nabigu joogay kaleey salaatu wasalaam laakiin meesha hadii inta la qabsado isla markiiba laga cararo taas guul lama yiraahdo tayib 3 maalmood ayaa meesha nabiga kaleey salaatu wasalaam ku sugnaa kadib waa ka guuray nabiga kaleey salaatu wasalaam xabiistii iyo qaniimadii ayaa la raray wuxuuna u magacaabay inuu madax uga noqdo Abdullah ibn Ka'ab ibn Amr an-Najari nabiga kaleey salaatu wasalaam qanaa'imtii marka xogaa ahkaam hore looma hayn qanaa'imtii marka Allah isku khilaafay markaas Ilaahay wina soo dejiyay subhanahu wa ta'ala fi surati al-anfal yasalunaka 'an al-anfal qul al-anfal lillahi ahkamti ghanimada ayaa Ilaahay wina soo dejiyay subhanahu wa ta'ala surati al-anfal ayaa la soo dejiyay طيب meel safra liira marka la maray nabi kaleey salaatu wasalaam غنائمتي ayuu qaybiyay sida Ilaahay uu amray nin la yiraahdo Nadr ibn al-Harith iyo
عقبة ابن أبي معيط لبضع عننا النبي وحو أمر إلا الدلو لفساد شرهم شرط ذات أبنى فسادك لكثرة فسادهم إن لبضع عننا الدلو النبي عليه الصلاة والسلام عقبة ابن أبي معيط وأنكي النبي مركم مكجوي سوى تكني وصلاة كجرة وعوي النفك جيلا من ديرتي سنتسوق على مضحة كساريوه من شريره شر بدنوه كان كلا نضر بن الحارث نكا أنه وحو أها أصدقنا قرآنك وعاي جري أساطير الأولين أيو كتل ما يجرون أصدقنا إبادنا وأها لوضع والد لي طيب رسولك عليه الصلاة والسلام وحولت الشضي صحابة ديس سيدي لغا يليا كوي لدلي وابا لدلي لكن كوان عنها إنهم حافظتان سيدي لغا يليا ماذا نصنع به محمد سمعنا والنبي عليه الصلاة والسلام تلادي مركا عمر وحو دورتي إن نمانكي دنتي لرعسي وايو سناديد قريش أيضا تضواتا كان لها أيو إن مدح فرشا لغا قادني أيغانا دكت ديك اللوطة سيدا سوء أبو بكر نوحو دورتي إن فدية لغا قاط مدح فرشا لغا قاط النبي عليه الصلاة والسلام وحو دورتي رأيي أبو بكر ننكستين ليرادو اسفرو رأيي أسو دورتي النبي عليه الصلاة والسلام ننبنا لعقت اللي قربه وحلو قيميني هنتي ذا أولي قفك هدو هنتي هايستو ونين هنتي لا أولي وحال قربه أفر كن أو درهم على قاعدة قفك هنتي لا أفر كن أو درهم على قربه كي wax furto aan haysanna ee reer maka waxay ahaayeen dad wax yaqaan ahaayeen qoraalka yaqaan dad ganacsato ah banaay qoraalka yaqaan reer Madiina laakiin qoraal ma aqoon waxa lagu ilzaaminayay inuu 10 dhalinyaro ah 10 dhalinyaro reer Madiina inuu qoraalka baro sida wax loo akhriyo markaas la sii deeyay 10 loo dhiibaa dhalinyaro markaas 10 kan waxaad bartaa farta iyo quraanka qaabka wax loo akhriyo bar طيب النبي عليه الصلاه والسلام markuu ra'yiga doortay ilaahay wina subhanahu wa ta'ala aayad buu soo dejiyay nabiga lagu canaananayo ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم حنان تاسع سودكت نبي أمسقنان أو أمبهبونبا أن يكون له أسرى حابيس أسهيست حتى يدخل في الأرض إلى إدخان أو سميه وقال هذا الجلعية طيب تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة حدوني سان نفع الدنيا والله يريد الآخرة قار أدينك إذن كم إذا الدنيا دونية ساسا ربي سبحانه وتعالى مركز سالي حديبة أو سنجير لهين إلهي ونا سبحانه وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم هذا باب إذا قبل الله هاي كتاب من الله يدو سهر مر لهين وحابة إذا قبل الله هاي وحاد قادتين سبب كيد عذاب إذا قبل الله وكسر الدقيقة على كل حال آخر لكن رب وحي فكلوا مما غنمتم حلالا طيب وحاد قادتين عنب لي وإذن حلال طيب رسولك عليه الصلاة والسلام مقالة المدينة أيها النقضي الصور الحجية وقوليستي كلمة إلهينا أي سرى نقطي نلقينا إلهي سبحانه وتعالى ومكانسيي إلهينا أوهي اللي سبحانه وتعالى مسلمينتي مركز وحا صو إسلامي بشر آد أفربدا أيها صو إسلامي غير مدينة تقوي ديب سوديقاي صو إسلامي عبد الله بن أبي بن سلول وهو رئيس المنافقين نكي المنافقين تمدح وهي جماعة المنافقين مركز إسلامي ماذا سوقاتي إسلامي ماذا تقية سيسو إلى عليان إسلامك إلا أن وحال أغادي وحويان إن مسلمين تيقعنت سراء إليه
dadkii Badr soo xaadiray oo muslimiin ahaa 312 ayay ahaayeen oo ka koobnaa muhaajiriin iyo ansaar طيب muhaajiriintu waxay ahaayeen 86 qofood reer awsna waxay ahaayeen 61 nin reer khasrajna waxay ahaayeen 170 rajulan 107 reer khasraj baa badnaa reer awsa yaraa xagga dagaalka iyo ba'siga marka la fiiriyana waxa reer awsa darnaay hadana way ku yiriin sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay dagaalkan dagaal loo diyaar garoobay ma ahayn dagaal loo diyaar garoobay ma ahayn si degdeg ah lagu soo baxay marka reer awsna waxay u badnaayeen awaali Madiina reeraha magaalada Madiina ay degatulooyinka u dhow bay u badnaayeen طيب mushrikiinta ciidadoodu waxay ahayd kun ayay ahaayeen muslimiinta maalintaas waxa laga dilay 14 ayaa ka dhintay oo ka shahiiday halka ku shahiiday 6 waxay ahaayeen muhaajiriin 6na waxay ahaayeen reer khasraj 2na reer aws ayay ahaayeen طيب halkaas ay ku gabagabowday duulaankii Badr marka fawaa'id baa laga qaadanaya fawaa'id min ghazwati Badr duulaankaas Ilaahay wanaag subhanahu wa ta'ala guushiye gabagabadii oo siiyay dadka muslimiinta waxa laga qaadanaya fawaa'id baa laga qaadanaya fawaa'ida laga qaadanaya koo waxa weeye غيبك inuu san ogeyn Allah maahan cid kale oo غيبka og ma leh أنه لا يعلم الغيب إلا الله محايل النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سوى صابحين أيقون كالأوين كلن كان ما قريش أو ما كتمت بعد لكل ميسان مسه أبو سفيان وحويان هو أنت أو وتساند أو وطيو وحويان أفرتنك ورديني صار لكل ميسان أيوه وحي أسعدين أبو سفيان وحويان إيدن كيسي لكل ما dagaal bal ugu talagalay marka غيبka cid aan Allah Allah subhanahu wa ta'ala anbiyadiisa iyo rususha Ilaahay uu soo diray intii Ilaahay uga muujiyo bay garanayaan tayib غيب mutlaq Allah baa garanay wala laga qaadanay min muhimmat alfawaid waxa kamida izzo iyo sharaf iyo madaxnimo iyo dhuhur islaamku muuqdo inaan la helin إلا بإحياء شعيرة الجهاد في سبيل الله إلا النوليو شعيرة الجهاد كما أهني وحا شرفت اللقوه لي مدحني ماذا اللقوه لي إسلام كم وقني وحويان جهاد كوي شعيرة صلى النوليو إلهي ونا سبحانه وتعالى رايدي سي وحي كركو نقطي جهاد كس لا إله إلا الله وحي كركو نقطي جهاد كس وإلهي قال هذا كود اللي مدى كالي ربي وحده سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم حالغيا بائنات شيء كهتان لكن شيء خير أو إذن مركي اللي يري ماشان نفير قريش ما بقى هذا أبو سفيان وافق هذا قريش وايو ماشان صوت ديار قرودي أو وحويان عيدا كيدي وحدي دبابات كذا ولا تمرك اللي يري والله النعباد مرك وآد بالوك هناي لكن ربي وحو يري وحا laga yaabaa inaad shay ka hotaan shaygaasna oo khayr idin muslimiinta khayr oo ah kulankan طيب ilaahi wax weyn subhanahu wa ta'ala ayuu la doonay dadka muslimiinta فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا آيات كلام waxa laga yaabaa inaad shay ka hotaan laakiin shaygaas aad ka hoonaysaa ilaahi khayr badan oo idin geliyo subhanahu wa ta'ala waxa kale ku sugan shiddatu عتوي أبي جهل ولا قاعدني شيء أدرنيد مدح أديك أبو جهل إن آد وقلب سنة ومدح أديك ووحيك ما عن لهين أيوب هاي ولا قاعدني فرعون هذه الأمة وحكى له لقى قاعدني بالصدع بركة الاستشارة بركة إلا ده ولا تشيء دي لو ولا تشهد إلهي سبحانه وتعالى وحكينا يا بركة وشاورهم في الأمر
sidaas nabiga lagu yiri calayhi salaatu arinta kala tasho wa amruhum shura baynahum minta ilaahi wa ku amaan subhanahu wa ta'ala waxa kale oo laga qaadanaya fadlu saxaabada fadliga ee dheeraadka ilaahi yiri subhanahu wa ta'ala u sii waxa kale oo laga qaadanaya ducadu inay shayga ra'iisiga ay tahay oo madaxda u ah kuwaad min awaamil an-nasr ala al-a'da waxa weeyaan looga guuleysto cadow waxa koow ah laf dhabar u ah ducada ilaahi in la bariyo subhanahu wa ta'ala asna ilaahi nabiga kaleey salaatu wasalaam aad ay u badi alla bariyo tayib waxa kale oo laga qaadanaya ciidamu hubbi saxaabati lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam saxaabada jacaylka ay u qabeen nabiga kaleey salaatu wasalaam weynankiisna waa laga qaadanaya tayib umurahaas iyo umuro ka badan ayaa laga qaadanaya halkaas kalimadeeni maanta ku egtahay wallahu subhanahu wa ta'ala alam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina